dowladdii hanti wadaagga ahayd waxay bilowday inay xirto iskuulladii iyo xarumihii waxbarashada ee ay maamulayeen dadka ajaanibta ah. tallaabadaasina waxay qayb ka ahayd socodka hannaankii lagu hirgelinaya qoraalka farta afka Soomaaliga oo aan hore u qornayn. sannadkii 1972 ayaana markii ugu horreysay taariikhda dalka Soomaaliya la qoray farta afka Soomaaliga. arrintan ayay xubnihii dowladdaasi ku jira isku raacsan yihiin inay ahayd siyaasaddii ugu taabagalsanayd ee uu sameeyo kacaankii 21 Oktoobar. laakiin xukumayaasha kacaanka wax kasta sidii ay filayeen uguma dhicin, waxaana ka hor yimid markiiba caqabado aad u waaweyn. waa marka hore waxaa soo ifbaxday in tuhun soo kala dhex galay saraakiishii afgembiga ka dambaysay qaarkood. saraakiisha qaarkood ayaa taageersanaa inqilaabka, laakiin waxay diidanaayeen in sarreeyagaas Maxamed Siyaad Barre uu noqdo hogaamiyaha dalka. saraakiishaasina waxaa ka mid ahaa taliyihii hoggaanka abaabulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Salaad Gabayre Kediye, oo si weyn uga dhex muuqday saraakiisha, taageerayaal badanna lahaa. waxaa iyaguna jiray saraakiil kale oo aysan caddayn inay ku xirnaayeen Salaad Gabayre, balse iyaguna sidooda u diidanaa Maxamed Siyaad Barre. waxaana saraakiishaasi ka mid ahaa Cabdulaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Faarax Caydiid. waxaa la sheegay in labadoodaba jagooyin diblomaasiyadeed laga siiyey dalalka Tanzaniya iyo Suudaan. markii ay diideenna waxaa durbadiiba loo diray xabsiga. Dr. Xasan Cali Mire waxa uu ka mid ahaa xoghayayaashii ugu horreeyey ee uu magacaabay kacaanku, balse isaga iyo laba kale ay wax yar kadib magacaabistooda iska casileen, iyagoo taasi u aaneeyey kala fikir duwanaansho in dalka loo sameeyo dastuur. anigu markaas run ahaan waxay ahayd militarigana wax kama aqoon oo dibaddan ka imid. anigu 62 baan America ka tegey oo ka Soomaaliya tegey. marka Cabdullaahi iyo Caydiid baa xoogaa la dareemay oo Maxamed Siyaad Barre dareemay inay hunu ka dhaxayso. labadaana la tuhmayay reer mudugga. labadii wuxuu ka dhigay aqalka inay ka bixin markuu qabtay. 5 nin oo ministerada markuu naga dhigay baan u tagnay isaga. war hadeer aan ugu furfurin yani military waqtiga magaalada inta leeg lagu diriro in nimanka xalka siida guriga leedahay ka bixin meeshan iyo kan iyo nagama maqal. dabadeedna hadee sidii baa lagu kala tegay. Caydiid Allah naxariista aqalkaygu igu yimid isagoo nin la socda oo la kugu mahadnaqayaa inaad xalay la hadasheen Maxamed Siyaad Barre. anigu keligay ma ahayn baan u sheegay, laakiin hadee heshiiskii waa adiga idinkana waa idin leenahay inaad dagaal iyo rabshad iyo inaan dhex gelin. haddaba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu u arkayay in halista weyn ay ka imanayso dhinaca Generaal Salaad Gabayre. Cabdi Warsame Isaaq ayaa xusuusta khilaafkii jiray sida uu kacaanku u arkayay xilligaasi. Salaad Gabayre waxaa tiri taariikhdiisa waxbaa ka dhiman, maxaad u tiri hadalkaas? waxaan u yidhi waxa weeye grouping ayaa maaragtay ka yari jiray jeeshka dhexdiisa. marka nimankaa waxay ahaayeen nimankii markii Maxamed Siyaad iyo darajada laga reebo ragga ugu darajo waaweyn bay ahaayeen. xoogoona waa isbadaayeen saraakiil oo yara darajo hoose ayay noo arkayeen. guddi bay sameeyeen. guddigii markay sameeyeen guddiga waxaa madax u ah Cabdulaahi Yuusuf iyo Caydiid ayaa madax u ahaa. Gabayre wuu diiday, wuxuu yidhi Cabdulaahigaas bal ha joogo, laakiin anagu Caydiid ma ogolay. guddigaas marka muxuu ahaa? guddi oo ayaga ay samaysteen saraakiishan sare kolonelayaasha ayaga ay samaysteen oo qaabka ayagana abaabulka dhinac kale oo la garab socdaa jiray. marka guddigoodiibuu ka soo carooday, sidaasoo annaga noo soo biiray markiiba maartay. bartamihii 1971 dowladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa ay qabqabatay saraakiil dhowr ah oo ku jiray Generaal Salaad Gabayre Kediye oo ay ku tuhuntay inay ka dambeeyeen inqilaab. sannad kadibna bishii Juun 1972 dowladda militariga ahayd waxay daldashay 2 xubnood oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka, kuwaasi oo kala ahaa Generaal Salaad Gabayre Kediye iyo Generaal Maxamed Caynaanshe Guuleed iyo sargaal saddexaad oo lagu magacaabo Korneel Cabdulqaadir Dheel. Generaal Salaad Gabayre waxaa si weyn loogu eedeeyey inuu inqilaab abaabulayay. Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga sheekeeyey wixii dhacay. Salaad Gabayre, Maxamed Caynaanshe Guuleed iyo Cabdulqaadir Maxamed Guuleed Dheel saddexdoodaba waa la dilay. sidee uu ku yimid dilkaasi? wallahi kulay hay'adihii oo nabadgelyada markaas already maartay muxuu ahaa nidaam baa dhashay, dawlad baa jirtay, qolooyinkii security iyo wixii oo dhan baa maartay muxuu ahaa yani howlahooda maartay muxuu ahaa ayaa shaqaynayay. marka aniga horta waxaa iiga xog ogaal fiican
security-da qoladii madaxda ahayd axmedkan ayaa madax u ahaa axmed salamaan laakiin waxa weeye un haddee salaad inqilaab buu wadaa layidhi waa gartay marka raggan kalena way la wadeen inqilaab buu waday muxuu ahaa cabdilqaadirna dadka oo kacandiidka ahaa oo berigii maaragtay ka hor xataa ay odayga islalaayeen ayuu ka mid ahaa waa gartay caynaanshana meel uma hayo aniga waa gartay aniga odaygaas maaragtay muxuu ahaa caynaansho la yidhaahdo maalin uu meesha ka hadliyo oo meesha golaha uu yidhi maaragtay muxuu ahaa meesha waxaa qabtay maaragtay xoogga dalkaa qabtay annagu waxaan nahay ku-xigeenkii xoogga janan baan nahay marka boliis inuu maaragtay way qorsheer baa maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka koowaad ahaa wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay marka xoogoo meelahaas ayaad moodaysay inuu yaro diidanaa haddaan wax uun maaragtay aan ka yidhaahdo wax kale wallahi aniga caynaansho in wax badan kama sheegi karo cusmaan maxamed jeelle oo ii sheegay inay si aadaha saaxiib u ahaayeen salaad gabayre ayaa qiray in generaalku uu qabanqaabinayo inqilaab waxaase uu ku adkaystay in la daandaansaday laguna qasbay inuu mowqifkaasi fog qaato waxaa kaloo uu ii sheegay in laga baaqsan karay dilka saraakiishaasi wallaahi ma wada aha sida mataqaanaa lagu wada eedeeyey jaamacada oodakeel wax dhibaataa inuu waday ma abo cabdulqaadir dheelna maba ahayn golaha maxamed caynaanshe isaga nafsadiisa wax abaabula ma gelin salaad gabayre allah dhammaantood u naxariistay waa jirtay inuu abaabul galay laakiin isweydiintu waxa weeye maxaa ku kallifay salaad waa lagu kallifay waana lagu riixay maalinta la amanayey habeenkii ka horeeyey aniga asagoo islaanay hoteelka la yiraa kadoolka deelsuud baan ka casheynay maxamed siyaadna waa ogaay nabadsuudana waana daba sootay markii dacwadiisa ii sheegtay aada baan runtii uga xumaaday maxaa yeelay isaga uu ah nin ganan ah oo ah golihii sare oo wasiir ah oo xaaskiisii wato oo galabtii magaalada ka baxay oo afgooye meelahaas u wareegna ayaa kontaroolka afgooye askari ku joogisay ma bixi karti waan yaabay buu yidhaahda maxaa dhacay maamed baa dhabtiin ha samaytaanin ha hataa generaalkaagabay taliga waana salaamayaan iibkana walada weeye walad baa taal u saxiixan yahay nin aduu markaa golaha ka mid ahaa aan doonay inaan hadda waxba sheego yaab baa alla u keenay uu soo laabtay waxaan hadday sidaasi jirto golaha keen dacwadaana wuxuu ahaa marka nin aada iyo aada geesi u ah geesinimo gaato ilaa nacasnimo wuxuu waxba mataqaanaa ka dacwoomahayo hebel iyo hebel waxan hadageel ma aha meeshii adna waxbaa lagaa sheegi ismana daato aysid intay ku wareegsana xoogaa joogjogeyn fara badan baa jirtay walagii aadan cabdulle xiriirdiisii waxay ka mida joogjogeynta siyaasid kuma jirin nin hadda dhibaato wadana ma ahayn hadiga gelintaa dicaayad baa laga feligi laleeyahay gabadhii aadan cabdulle maadaama waray salaad gabadhaa dabada ka wado nin naaga wado iyo dibi u wadaaho kaama joogsadaan baa layihi waxyaabaha la sheegiyo waxa weeye xataa ninba ma ahaydinagti naasadaadubay tidhaahdaa habayba dhaantidin haddaa nin tahay aabay lama xideenna anigu inantii baan nafsadeedii weydiyoynaa maxaa kuu kalifay baadumoy way ka dhaalatay macluulna ma aha marka saykoloojiyan in laga dhaadhiciyo golihii inuu ninkii nin dhibaato soo wada yahay ayaa jirtay markaa isagu waa abay waana abaabulay muxuu ahaa cilaab dabweeye laakiin hadda waa lagu kalifay waana laga kaaftoomi karay dilkane ma ahayn tala fiican in la xiyo unbaa habooneed 1971 kadib markii la qabtay jenaraal salaad gabayre kediye ayaa wasiirka gaashaandhigga loo magacaabay maxamed cali samatar raggii la qabtay dembiga galay markaa la xukumay maxkamad la geeyey ku caddaaday dembigii lagu marag furay dabadeedna sharciga siduu dhigayay la mariyey wax ay keeneen oo arrintaas ay keentay oo dib u dhac iyo weakness ah midna ma jirin saraakiisha ku wada jiray golaha sare ee kacaanka waxay ku kala aragti duwanaayeen in xubnaha la daldalay ay dhammaantood inqilaab ku jireen axmed sulaymaan cabdalle waxa uu markaasi ahaa madaxii hay-adda nabad sugidda waxa weeye
way ka hor yimaadeen waxaanay dooneen inay inqilaab nagu sameeyaan pure dabadeedna waa la xidhxidhay intaana iyagii samayn inqilaabkii ee annaga aanay amana xidhxidhin amana layn yaanu iyagii xidhxidhnay markaa adu door intee leeg baad ka ciyaartay xidhxidhidda nabadda ninka suga yaan ahaa waa gartay yaa ogaan kara markaa iyaga iyo waxay ku jiraan shaqadeeday ka mid ahay marka maxaad ku hesha haddaad wax iiga sheegi karto waxaan ku helay wixii maxkamadda lagu soo taagay maxkamad baa la soo taagay maxkamaddana waa lagu caddeeyey dembigoodii dabadeedna waa kii lagu xukumay dilka saraakiishaasi kadib dawladdii kacaanku waxay mar kale lugaha la gashay caqabado hor leh oo soo food saaray 1973 dawladda madaxweyne maxamed siyaad barre waxay soo saartay xeerkii lagu magacaabay xeerka qoyska oo u oggolaanaya haweenka inay la sinmaan ragga xagga xuquuqda dhaxalka arrintani waxay ka mid ahayd gafafka ugu waaweyn ee golaha sare ee kacaanku uu sameeyey waayo tallaabadaasi waxay gebi ahaanba liddi ku ahayd aayado qur'aanka kariimka ah waxayna xubnihii ku jiray dawladdaasi ay isku wada raacsan yihiin inuu ahaa qaladkii ugu weynaa abid ee ay gasho dawladdii madaxweyne maxamed siyaad barre waxaana ololihii arrintaasi lagu diiday hormood ka noqday culimmada diinta islaamka kuwaasi oo markii ay si cad uga hor yimaadeen xadgudubkaasi lagula kacay diinta islaamka la qabqabtay sababta ay haddaba culimmadu uga hor yimaadeen waxay ahayd xeerkaasi oo ka hor imanayey aayado qur'aanka kariimka ah aayadahaasi kuwa ay ahaayeen waxaa sharaxaad ka bixiyey muftiga weyn ee soomaaliyeed sheekh cumar faaruq xeerka wuxuu qeexayey in ragga iyo haweenku isku mid yihiin ayaduna waxay qeexaysa inayn isku mid ahayn ayadaha markaa inaan ragga iyo haweenka sinayn sheegaya waa badan yihiinoo walayse dakaru kal unsaa baa ka mid a walayse dakaru kal unsaa macnaheedu yahay axadka lab ka dhadig lamid maaha waxaa kamid a ayada suuratu nisaa ada asusta adiga oo macnaheedu yahay lidakari mithlu xawdil unsayeyn lidakari mithlu xawdil unsayeyn oo macnaheedu yahay axadka lab oo ragga ah wuxuu leeyahay laba dhadig dheeftood oo macnaha waxaa isku dhaxala laba dumara iyo hal wiil ayadahaas bay ahaayeen waxaa la isaga hor yimin oladan kacaankana sakajaa waxaasoo dhan bay u arkayeen waxaan fiicnay oo sakajaana marka ninkii waddanka xilligaa haystay hadalladan ka xusa maalinka uu ku hadlay waxaa kamid ah wuxuu yidhi wax kaleba iska daayo nanaysta xataa loo kala yaqaano dig iyo laboodka lama kala bedeli karo haddii ninka la yidhaahdo jaalle hadalkiisii wey waa qoran yahay waana dhuuban yahay haddii ninka la yidhaahdo jaalle gabadhana la yidhaahdo jaalley yeeli mayna wey ninkuna waa jaalle gabadhana waa jaalle wuxuna wada jaalle kolka wax bala wadatuu ahaa kolka aragti fog oo aan ummadda soomaali xiriir iyo qaraabo la ahayn oo gaalo ka soo jeeday baa dalka la keenay in lagu dabaqana la damcay qarankooda diiday jumlatan wa tafsiila sidaasaa wixii dhacay ku dhaceen oo nin hadeerba boqortooyada joogo aanan weli geeridiisa maqaloo janan ahaayo qoladan loo yaqaan guulwadayaasha ahaayo la dhihi jiray cabdiwahaab makaahiil baa ku jiray dadkii aan odaga laga celiyay intuu tagu gundaha iyo lugaha qabsaday odaga oo uu yidhi balaa karaysa hog iyo ba'baa foolanayo suuqii baan ka imid cirkaasaa ummaddu maraysa dhibaataa maanta dhacaysa adaana baajin karee waxaad yeeli wadaadadii almasaajidka ka qadqabatay siida idaacadana haddaba u yeedho oo inaad wadaadadii sii daysay iclaani u sheeg ummadda siinadaa wadaadada beledana demi hadhowna si xigmaa wax u maamul wuxuu ku yidhi bilxarfil waaxid way cabsadeen nala odhan maayo axmed sulaymaan dafle ayaa ka warramaya sida uu xeerkaasi ku yimid culimadii waa kacday runtii culimadu waxay ka kacday sinaantii haweenka iyo ragga raggii iyo haweenka markii la yidhi waa la sinan waa sinan yihiin qodob qalad nooga dhacayna waa ku jiray meesha runtii keebuha waxa weeyaan qodobkii oo ahaa dhaxalka wiilka iyo gabadha walaaliya way u siman yihiin markaanu nidhi qodob qalad nooga dhacay buu ahaa waayo qur-aanka waxaa ku qoran wiilku wuxuu leeyahay gabadha labanlaabkeed qur-aankii inaan ka hortagno ma ahayn marka maxaa ugu qorteen waxaanu ugu qoranay waa iska jibaysnaynoo de waxaanu nidhi maxaanku idhahdaa ragga iyo dumarka sima waayo dumarkaa runtii soomaali haddaynu nahay raggeenna dumarkaa ka fiican maantaba way muuqataa waxa maanta reeraha masruufa waa dumar 90% wax waa bixiya waa dumar kacaankayagii wuxuu diskabargareeyey inay dumarku ragga ka fiican yihiin dumarka soomaaliyeed ragga soomaaliyeed inay ka fiican yihiin
yuu discover garay markii bulshadii aanu kicinay ee aanu hanuuninay aanu nidha aynu shaqaysano ee shaqo loo dhaqaaqay dumarkii inay ka fiican yihiin markaasaanu dumarku ragga waa la siman yihiin markaasaa wadaadadii nagu kicin cusmaan maxamed jeelle waxa uu iga sheekeeyey in madaxweyne maxamed siyaad barre uu uga digay xeerkaasi balse taladiisa la dhagaysan waayey dadweyne waxa uu doonayo inaad samayso ayaa haboon wax badan baan kala hadlay saaxiibkay maxamed siyaad allahu naxariiso waxaan idhi xoolo badan oo hadda la dhexlaa soomaaliya mayaalin dhibaato aan u abno hadda ma taqaana baahi aan u abnana ma jirte dhibaatada ay keenyaa ka badan haddii diin ahaan aanan yeelaynin alalaha danteena dawlad ahaan ma aha arrintan aleego ilaahay dadka abuura ayaa og waxaa ayaddu ku dhamaanaysaa ofkii diido xuduudka ilaahay soohdin buu dhigay soohdintaa ninkii ka gudbo dee dhibaatuu la kulmayaa ase waxaa weeye fallaad xoogli meeshaas waa inooga dhacday inkastuu anigu anan ilaahay mahadii ka mid ahayn intii ogolaatay ama goobjoog aan ahayn oo dibadda ku maqnaay haddana dhibaatadeedu aniga ii badneed oo degdeg soo gelinta layiri wafdi laygu daylayay ka soo dhaadhici bal caalamaha iyo dalalka muslimka wax laga dhaadhici karo aniga ahayn wax xusuustaa intii laga duulaya waxaan la-aday ciddii go-aamisay ayaa ay gas tahay inay iyadu usoo sheegto dadka ka xanaagsan waan xusuustaa in saaxiibkay ahayo ama haddaan tilmaamaba axmed sulaymaan oo saxaabaheyda ka mid ahaa ayaa ku cadfaysay wuxuu waxaan ismaan ahayno inaga bixinaya amaanta ma jiraan weli waan xusuustaa maahan isagoo aduu xusuusay haddii kale ilow inuu tagaa markaan xoogaa diiday axmed siyaad inuu soo dhaco labaad 1975 waxaa mucaaradada ay kala hor yimaadeen xeerkaasi qoyska fagaare loogu toogtay 10 ka tirsan culimmada Soomaaliyeed oo ka mid ahaa culimmadii la qabqabtay Sheekh Cumar Faaruq oo ay yaqaaneen culimmada la laayay qaarkood ayaa nooga warramay sidii ay wax u dhaceen halkii markaa wuxuu noqday odaga amar buu bixiyey xilliga wadanka haystay amarna wuxuu ku bixiyey wixii ka hor yimaadaa go-aanka dawladda in laga faraxasho laga takhaluso uu amar ku bixiyey markaa sheekh ibraahim zuule iyo dhowr sheekh ayaa la xirxiray masaajidii baa laga khudbeeyey oo xamaasaa lagu khudbeeyey oo waxaa kacday gadood ama dareen heer sare ah culammadu rag culamo ah oo ana waa ku jireen oo shaksiyan u aqiin rag wadkood galayna waa ku jiray oo maalinkaas ka dhintay culammada marka caanka ee aan aqiinay waxaa kamid a 2 nin ragga haddaan sheegay ama xusi karo oo caalimiin aha oo ku darsaday cilmiga zuhdi waxaa la yidhaahdaa wadaadada aan sidaydoo kale naaga hadanaynin oo caruurta iyo waxa iyo aan lahayn marka 2 zaahid bay ahaayeen kitaabkaanu wada akhrisan jiray sheekh ibraahim suley baa noo akhrin jiray kitaabka xadiis buu riyaad saalixiin saydkaasi gaale gadoodka markuu dhacay sheekhiyaha dhintay oo shaksiyan u aqiinay mid wuu hadlay hadal yar oo kooban buu yidhi oo macruufoo dee la yaqaan warkii haddaba waa duuban yahay wuxuu yidhi ruus iyo soomaali wax ka dhexeeya ama kulmiya ma jiraan ruus waa gaaluu yidhi soomaalina waa muslim buu yidhi ruus waa caddaan buu yidhi soomaalina waa madow buu yidhi yurub weeyi ruus soomaali africa weeyi buu yidhi wax ruus iyo soomaali kulmiya ma jiraan buu yidhi dadka markaa naga daba wada buu yidhi oo iyadoo aan diin iyo degmo iyo dadnimo iyo midab iyo mabda waxna kulmiya ruus uusan jirin dadka nagu khasbaayeen naga dawada ilaahay naga qabto anagoo sugadii wixii baa joogto beledu waa foolanaysa sheekh intaasuu yidhi dhan baa la yidhi sheekh kale isaguna sidaas oo kale ayuu xamaasa muujiyey 2 sheekh waa la qabtay culamo badan oo gadoodayna waa la qabtay sidaasaa wixii dhintay ay ku dhinteen maadaama waxoogaa laga soo wareegay inkastoo raggii aqiin sheekh axmed iimaan la odhan jiray wasaaradda waxbarashada ah raggii maalinkaa dhintay buu ku jiray sheekh axmed iimaan baa la odhan jiray dilka culimmadan iyo kii loo geystay xubnihii kale ee ka tirsanaa golaha sare ee kacaanka waxaa raadreebkoodu noqday in culimo siyaasiyiin aqoon-yahano iyo dad caadi ahba ay bilaabaan diyaargarowga mucaaradnimo lagala hortago maamulka madaxweyne maxamed siyaad barre waxa uu ka fikirayey tallaabada uu kaga hortegi lahaa mucaaradnimo lagala hor yimaado iyo sidii uu mar kale dadka isku dhinac ugu jeedin lahaa
1976 ayuu soo bandhigay hindise cusub oo ku talinaya in la dhiso xisbi talada haya oo lagu magacaabo xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed. isla sannadkaasi ayaana qodobkaasi la meel mariyey, waxaana lagu dhawaaqay dhismaha xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed. loomana adkaysan in wax xisbi ah oo mucaarad ah uu ka garab dhasho. samaynta xisbiga lafteeda ayaa la sheegayaa haddaba inay caqabad hor leh ku noqotay kacaankii. waxaa la sheegay inay horseeday in awooddii kacaanka iyo xukunka waddanka ay baahdo. siyaabaha ay haddaba caqabad ugu noqotay dowladdaasna waxaa sharaxaya maxamed faarax jimcaale. dhaawaca labaadoo weyn oo khatarta ah waxaa xisbigii abuuritaanka xisbigu ahaa. jaamacadaha dood baa ka fufray, nin kastoo mutacalima waa doodi jiray, aaraada waa la isdhaafan jiray. kacaanku naftiisu doodahaas waxbuu ka qaadan jiray. arrinta waxay saxsaxtay markii xisbigii la sameeyey. ana waxaan garanayaa markii la sameeyey banaadir secondary school baan waxaan ka ahaa maamule. 33 macalin oo jaamiciyiin ah baa ila shaqeynaysa iyo macalimiin raasha. waxaan xusuustaa xisbigii waxaa lagu soo daray 2 dumara oo dhulka xaaqda. hal qof oo macalimiintii iyo raggii meesha joogay iyo dadkii waxgaradka ahaa waa laga reebay. waxaa dhacday marka meeshii meel xiran bay noqotay. ururka haweenka, ururka iskaashatada, ururka dhalinyarada, ururka kan, yani meel xiran oo weliba dadkii eliidka ahaa oo looma aqoon dadka maaragtay maskaxda furan oo dooda. waxaa loo bixiyey kacaandiid baa loo bixiyey. dad wada baari ah oo masaakiin ah oo dood badan iyo dhibaato badan baanu isla galnay raggii xisbiga ahaa. waa gartay. marka siyaasadda guud ee waddanka sideeba wax ugu dhintay abuuritaanka xisbigu? waxay ugu dhintay yani maskaxdii dadka mutacalimiinta oo waxgaradka oo maskaxdoodii baa xirantay oo waxa la contribution meeshii ka bixin lahayd bay weyday. oo meesha shirarka laga qaban jiray ay afkaartooda ku muujin jireen oo looga faa'iideysan lahaa baa xirantay. meel walba waxay noqotay guri yar oo koox u xiran, urur magac leh u xiran. ilaa heer raggii wasiirada qaar geli waayaan, xisbiga soo geli waayaan, ilaa qaar loo bixiyo wasiiradii dowladda kacaandiid loo bixiyo. bal iska dhaaf nin banaanka jooga intaagta waa lehe kii ku dhex jiray magacyo loo kala bixiyo. marka waxaa xirmay wax banaanka contribution uga yimaada, caaraac uga timaada, aqoon uga timaada dowladdii iyo xisbigii baa yaraatay. xubnaha golaha sare ee kacaanka ee ay xisbiyiintu bedeleen ayaa sidoo kale muujiyey inaysan ku qanacsanayn aasaaskii xisbiga. xisbiga abuurma horta golaha sare 1976 ayaan xilka wareejinay 1 Luulyo. waa gartay. waxaa wareejiyey golihii sare kacaanka. ayaa wareejiyey xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyey, ayaa dhashay. annaga markaan runta kuu sheegay xil toos ah oo annaga aan leenahay golaha sare waqtigaas ayaa nooga dambeysay. qola annaga naga mid ah maartay muxuu ahayd xisbigii iyo hooshii ayay galeen sida bulid bureau iyo wax lamid ah. odayga iyo samatar iyo ismaaciil cali bakor iyo axmed Suleymaan iyo xuseen kulmi iyo aduu dadkaas shan aan dhihi jiray shanta Soomaalida u garanaysaa. waa gartay. qolo kale oo ambition miiran oo xisbiga dhexdiisa ka soo baxay ayaa ayagana jiriyo waxa la yiraahdo maartay golo sare iyo maartay aad maartay muxuu ahaa u neceb oo aan la jecleen oo ayagana waxay wataan aan la garanayno hanti wadaag iyo waxyaabahaas iyo loo orday ayagana maartay dhibkooda ayay la yimaadeen. marka adiga markaan isku soo duubo xisbiga dhibaato maartay ayuu la yimid. axmed Suleymaan Dafle ayaa ka hadlaya abuuritaankii xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed. wax yar haddaan dib ugu laabto, dad ragga aan la hadlay qaarkoodna waxay igu dhaheen xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed markii la aasaasay bishii Juulaay 1976 caqabado cusub baa naga hor yimid bay dhaheen. markii hore waxaan ahayn koox isku duuban, maxaan ku idhaahdaa, nin walba dhowr xil hayo, la isxilqaamayo. xisbigii markuu yimid taladii way ballaaratay dhaheen, dhibaatooyinkiina way bateen. arrintaa ka waran? waa run, taladii way ballaaratay. raggayagii hore waxaanu ahayn rag is yaqaana, rag isku background dhow, rag soo wada koray yaanu ahayn. raggayagii militariga ahaa iyo raggii maxaan ku dhahaa civilianka ee markii hore aanu dooranay. laakiin
markii ay noqotay maxaan ku idhahdaa jantarogan ummadii oo dhan maaragtay la dhaqaajiyey dabcan xisbiga ummadii oo dhan buu noqday nin waliba markaa waa ku jiray dadku isku wada fikrad ma ahayn isku wada background ma ahayn isku wada cilmi ma ahayn isku wada aqoon ma ahayn soo garanaysid marka waxay noqotay in daldalool badani ka soo baxo mar kale ayaa hogaamiyaha kacaanka jenaraal maxamed siyaad barre uu isku dayay inuu dib ugu laabto mid ka mid ah hadafyadii kacaanka taasi oo ahayd in la raadiyo dhulalka ay dowladdaasi aaminsanayd inay ka maqan yihiin soomaaliya maxamed cali samater ayaan weydiiyey waxa ay ku doorteen inay dagaal galaan bal horta dagaalka etoobiya iyo annagana dhex maray mar dambuu yimiye annaga markii hore dagaal umana soconin mana ku duulin ee waxaa dhacay gobonnimo doonaa jiray oo kacaanka ka hor dhisnaa oo jiray gobonnimo doonadii ayaa markaa xoogaystay oo la abaabulay oo gacan la siiyey gobonnimo doonadii ayaa dagaal galay oo ku qaaday marka dagaalkiisu u socday markaa ciidan kale inuu soo galay noqotay bishu waa Noofembar sanadku waa 1976 madaxweynaha Soomaaliya ayaa saxeexay go'aankii lagu amriyay ciidanka qaranka inay xoog ku soo celiyaan mid ka mid ah saddexda gobol ee kacaanku sheegay inay Soomaaliya ka maqan yihiin Cabdi Warsame Isaaq ayaa ii sheegay in duulaanka ay qaaday Soomaaliya uusan ahayn fikrad habeen kaliya ku dhalatay golihii sare ee kacaanka annaga fikirka dagaalka wuxuu salka ku hayay Soomaali weyn buu maartay gacanta ku hayay wax annaga maartay aan iska maagnay oo dagaalkaas in la galo maartay ma ahayn fikirka kaas waxa midkaasna wuxuu ahaa kii oo leegadii iyo SNL xagga maartay muxuu ahaa waqooyi wixii dhan hasbiyaashii waxay ku saalgameen oo maartay muxuu ahaa wadanka lagu xoreeyay labaday isku darsantay intii kala hartay in la dhameystiro ayay maartay muxuu ahaa annaga fikirkeena u ahaa si ayadana hadee waxa yeelatay cadow badan baa yeelatay xilligaasi ay dawladda Soomaaliya weerartay dawladda Itoobiya waxa uu dalkaasi ku jiraa wax ka yar sanad gacanta xukumayaasha cusub ee militariga ee uu hogaamiyo Mengistu Haile Mariam waxaana wadankaasi looga dhawaaqay hanti wadaag sidaasi awgeedna waxaa xubnaha xulufada hanti wadaaga oo horkacaya midowga Sofiyeeti ay u arkayeen in tallaabada ay Soomaaliya qaaday ay wiiqayso fiditaankii hanti wadaaga ee qaaradda Afrika dawladda midowga Sofiyeeti waxa ay fartay Soomaaliya inaysan weerarin ciidamada Itoobiya waayo fiditaanka hanti wadaaga ayaa uga muhiimsanaa dawladda midowga Sofiyeeti raadinta midnimo Soomaaliyeed bilowgii sanadkii 1977 waxay Soomaaliya taageero la'aanta Sofiyeetka kaga jawaabtay si culus iyadoo soo saartay amar ah in khubarada militariga iyo diblomaasiyiinta Sofiyeetka ay muddo 48 saacadood gudahooda kaga baxaan Soomaaliya Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga warramay mowqifkii dawladda Sofiyeetka ay ka taagnayd Soomaaliya iyo Itoobiya qalad kale oo la sameeyay waxa uu ahaa baa la yiri in ruushka laga saaro Soomaaliya oo xiriirkii gaashaanbuurtana laga goosto arrintaas waxay u baahan tahay xogo gadaal in loo noqdo u baahan tahay ruushka anigu waxaan ku jiray wafdi oo odigu hogaaminay Moscow waxaan ka qayb galnay shirkii oo xisbiga shuuciga oo Soviet ayaan ka qayb galnay adiga meesha dee wixii ragii waaweynaa oo Fidel Castro wixii lamada iyo Saako iyo adigu rag waaweyn maartay ayaa meesha yimid annagana maartay inaan ka yareen ayaanba maartay isku wadnay marka Brezhnev baa secretary generalka xisbiga ahaa marka waxaan isku daynay inaan aragno oo la kulano waa noo suurtoobi si kastaba haddaan yeelnay waa noo suurtoobi markii dambe waxaan arkay Podgorny oo madaxweyne ahaa sheekadii meesha ka soo baxday wuxuu ahaa Podgorny uu yiri aniga goobjoog baa ahaa wuxuu yiri taariikhda lama sheegin military hanti wadaag dhisa marka sida daraadeed idanka muslimaadkiin marka meesha oo maartay hanti wadaag runta uu ka soo baxay waa Ethiopia annagana oosha waxaan u soconaa oo u gurguurinayna meesha Ethiopia marka meeshaas waa la iska arkay marka waa fiicneed inaan la helinin la iska daayo waayo waxa la yiraahdaa mabuur ah mabuur ku tiirsanaa bishii Juun ee 1977 waxaa Soomaaliya u soo hoyatay guul weyn
taasi oo ahayd in ciidamada qaranku ay dib u hantaan badi gobolka Soomaali galbeed kadib weerarro socday ilaa bishii Sebteembar ee sanadkaas. si kastaba arrintu ha ahaatee bishii Maarso 1978 ayaa dawladda Itoobiya oo ay xaggeeda mareen dhammaan xulufadii hore ee Soomaaliya ayna horboodiyaan midowga Soofiyeti, Kuuba, Yamanta Koonfureed iyo Liibiya ay dib u soo riixeen ciidamada Soomaalida. Dagaalkiina waa lagu jabiyey ciidanka Soomaaliya. waxay ku qaadatay dawladda Maraykanka 1 sano iyo bar inay kaga soo jawaabaan codsi ay dawladda Soomaaliya u jeedisay oo ahaa in gacan military iyo mid dhaqaalaba la siiyo. weliba goorta ay dawladda Maraykanku bilowday inay keento gargaar ka dhaqaale iyo ka cunto iyo qayb yar oo saanad military ah, dalka Soomaaliya waxa uu durba lugta la sii galayay burbur dhaqaale iyo fawdo siyaasadeed. sidaas darteedna waxaa bog cusub u furmay taariikhda siyaasadda kacaankii militariga iyo hogaamiyaheeda Maxamed Siyaad Barre, inkastoo haddana aan la dhihi karin taasi lama filaan ayay ku ahayd.